kulanti wacan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararkeedin heeso waxa uu dooron ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo gudoomiyay shirka horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya bandhiga wax soo saarka dalka oo baydhabo lagu qabtay wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Soomaaliya oo booqday kaalmo ku yaala magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya hay'adaha amniga oo soo bandhigay dukumiintiyo been abuur ah iyo qalab lagu sameyn jiray madaxweynaha Puntland oo qaabilay ergiga midowga Yurub ee Soomaaliya al-shabaab oo ka haysatay ergooyin xildhibaanada soo doortay warbaahinta Kenya oo faaqidaysa in wada hadal yeelanayaan Farmaajo iyo Uhuru askari la sheegay in muddo 40 cisho ah meedkiisa yaala Muqdisho oo wali aan la aasin iyo xaaf oo la sheegayo inuu ka tanaasulay marasharaxnimada galmudug waxa daawadayaal intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararkeeda heeskooda ugu doorkroon dadka cusub tahay barteena YouTube ka fadlan subscribe dhawr rukumo si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka kan soo gudbina barteena YouTube ka daawadayaal markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan xildhibaan Cabdiqaadir Cosable oo ka hadlay kulan ay isugu yimaadeen qaar ka tirsan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in aan loo dul qaadan karin in maamulka gobolka Banaadir laga soo magacaabo madaxtooyada waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay wado nidaamkii dawladii Maxamed Siyaad Barre isla markaana ay dalka doonayso in gacan bir ay ku qabato waxa uu sheegay in gudoomiye habeen madow text message lagu magacaabay habeen dambana uu text message ku bixi karo sidoo hadalku u dhigay isagoo sheegay in shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir loo baahan yahay in ayahooda ay ka tashtaan halkii ay sugi lahaayeen in madaxtooyada war laga soo saaray lagu dhaqo bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxa uu sheegay in shirweyne looga aleersanayo ayaha gobolka Banaadir ay dhawaan qaban doonaan sidoo hadalku u dhigay isagoo si kulul u weeray madaxda ugu sareysa ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Abdiraxmaan Cumar Ismaan Injineer Yiisow ayaa sheegay inuu ka xun yahay xildhibaanada ku hadlaya afka qabiilka waxa uu sheegay in xildhibaan Cabdiqaadir Cusable iyo xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ay yihiin sidoo hadalku u dhigay qaswadayaal ka soo horjeeda horumarka ay dawladda Soomaaliya xilligan ku talaabsanayso hore ayaa baraha bulshada waxa ay isu weerareen gudoomiye Yiisow xildhibaan Axmed Macalin Fiqi iyadoo ay jiraan kala aragti duwanaansho dhinaca siyaasadda ah oo u dhaxaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyo xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa gudoomiyay shirka horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa gudoomiyay shir horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya looga hadlayay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho shirka oo ka qayb galeen beesha caalamka iyo deeq-bixiyaasha ayaa laga hadlay barnaamijyada horumarinta dalka kulanka ayaa waxa warbixin looga dhageystay maamulka gobolka Banaadir dawlad goboleedyada iyo wasaaradaha haweenka iyo qorsheynta wasaaradda howlaha guud ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa intii uu shirka socday waxay soo bandhigtay mashaariic bangiga adduunka uu ka fulinayo gobolada dalka Soomaaliya shirka horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya oo ay ka soo qayb galaan dawladda federaalka maamul goboleedyada qaramada midoobay midowga Yurub ururka iskaashiga islaamka bangiga adduunka bangiga horumarinta Afrika iyo dhammaan dhinacyada Soomaaliya kala shaqeeya horumarinta ayaa looga hadlaa arrimaha horumarinta ee dalka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Soomaaliya ayaa booqday kaamam ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Baay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kormeeray qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan kaamamka ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay kormeerka uu maanta ku tagay kaamka ku yaala duleedka magaalada Baydhabo wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ku weeliyay wasiirka wasaaradda gargaarka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ujeedada kormeerka ayaa wasiiradu ku sheegeen sidii ay ugu koorgali lahaayeen xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku nool duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa sidoo kale kormeerka qayb ka ahaa gudoomiyaha guddiga hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed gudoomiyaha guddiga hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Cali Maxamed iyo wasiirka ku-xigeenka gargaarka ee Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Sheekh Cali Baraka oo ka warramay xaaladda qoysaskan barakacayaasha ee ku jira xerooyinkan iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la taageero dhinacyada hoyga waxbarashada iyo cuntada madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qaabilay ergeyga midowga Yurub ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa madaxtooyada Garowe ku qaabilay ergeyga midowga Yurub oo dhawaan u soo magacaabay Soomaaliya Nicolas Bernardo Martinez iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka mid yihiin ku-xigeenkiisa oo hadda xafiiska baneeya iyo mas'uuliyiin kale kulanka ay yeesheen madaxweynaha Puntland iyo ergeyga midowga Yurub
waxaa looga hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan Puntland sida amniga, siyaasadda, mashaariicda horumarineed ee Midowga Yurub ka fuliyo Puntland iyo arrimaha bini'aadanimada. erayga Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Puntland soo dhaweynta wafdiga Midowga Yurub ka socda ayaa inta ay socdaalka ku joogaan Garowe waxay kulamo la qaadanayaan wasaaradaha maaliyadda, qorsheynta oo ay kala hadli doonaan mashaariicda socda ee Midowga Yurub fulinayo iyo kuwa cusub ee qorsheenayo. Hay'adaha amniga ayaa soo bandhigay dukumiintiyo been abuur ah iyo qalab lagu farsameyn jiray. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo xeer ilaalinta qaranka ayaa magaalada Muqdisho waxay ku soo bandhigeen dukumiintiyo been abuur ah iyo qalab lagu farsameeyo kadib howlgal laga sameeyay Muqdisho. qalabkan ayaa hay'adaha amnigu waxay sheegeen in loo adeegsan jiray sameynta leysimaha baabuurta oo been abuur ah iyo warqadaha canshuuraha, waxaana lagu soo bandhigay xarunta taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen xeelaliyaha guud ee qaranka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, taliyaha hoggaanka canshuuraha ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed. taliyaha hoggaanka canshuuraha ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdullaahi Xasan Bariis ayaa sheegay in sidoo kale qalabkan loo adeegsan jiray sameynta fiisooyinka, warqadaha caafimaadka ee isbitaalada iyo waxbarashada oo shahaadooyin lagu sameyn jiray. alaabta hadda idin hor taala waxaa ka mid ah dukumiinti ay bixiso dawladda hoose ee dhulka. baasabooradu waxay isugu jiraan kuwa dibadeed oo dawlado kale leeyihiin iyo kuwa muxuu ahay baasaboorka Soomaaliya. wasaaradda dukumiinti caafimaad oo muxuu ahay loo sameeyo looguna fududeynayo dadka muxuu ahay caafimaadka u baxaya, maadaama isbitaaladu ay ku xujiyaan qofku inuu yahay qof garaaba ah oon dalka waxba looga qaban karin si loogu fududeeyo fiisooyinka. wasaaradda waxbarashada dukumiintigeedii, shahaadooyinkoodii hadday ahaan lahayd dugsi dhexe, hadday ahaan lahayd dugsi sare ilaa heer jaamacadeed hortiina ayay yaaliin. waxaa meesha ku jira haddana dukumiinti ah warqadda dembi la'aanta certificaate de penale oo halisa oo ayaduna muxuu ahay warqadda dembi la'aanta qofka muwaadinka loo sameeyo oo ayaduna been abuura oo ay sameynayeen. xiliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa dhankiisa sheegay in hay'adaha amniga ay ka gaabiyeen wax ka qabashada dadka ka howlan farsameynta dukumiintada been abuurka ah iyo waxyaabo kale oo lid ku ah amniga. waxa uu sheegay in waajib ay tahay in tallaabo cad laga qaado dadka sameynaya dukumiintiyada la ciribtiro. waxaan idin leeyahay anigu idinku amaanaya shaqada maanta aad qabateen, laakiin gaabis baa idinku jira idin leeyahay. weli gaabis jira. waa in laga hawlgalaa in la soo afjaro. hay'adaha loo keenayo oo xafiiska xeeraaliyuhu ugu horeeyo oo maxkamaduhu ku xigaan oo xabsigu ku xigo oo saldhigyadu ku jiraan, ayagana waxaan leeyahay gacan adag oo sharciga waafaqsan in dadka lagu qabto oo aan si sahlan sharciga gacantiisa uga bixin, oo qof walbaaba wixii uu mutaysto lagu qaado, qofkii aan mutaysanin xorriyadiisa waxaana xusid mudan in hay'adaha amniga aysan soo bandhigin dad lagu soo qabtay dukumiintada been abuurka ah iyo qalabkii la sameynayay. warar ayaa sheegaya in ergadii soo xushay xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ay u yeereen ururka Shabaab. warar waxay sheegayaan in ay jiraan in loo yeeray qaar ka tirsan ergadii soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya. sanadka soo socda ee 2020 dhamaadkiisa ayaa waxaa Soomaaliya la rajeynayaa inay ka dhacdo doorasho, waxaana wararku ay sheegayaan in ay ergada qaar ay la kulmeen xubno ka tirsan Al-Shabaab inkastoo si rasmi ah wararkaas loo cadeyn karin. hase yeeshee waxaa horey dhowr jeer u dhacay dilal qorsheysan oo loo geystay ergooyin soo xushay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, waxaana mas'uuliyadda dilalkaas sheegatay ururka Shabaab. ugu dambeyntiina Xaaf ayaa waxaa la sheegay inuu ka tanaasulay masharaxnimada Galmudug. Axmed Ducaale Geelle Xaaf, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, ayaa ka tanaasulay ka qaybgalka doorashada Galmudug ee sanadka 2019 kadib kulamo ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya sida ay ogaatay warbaahinta. madaxweyne Xaaf oo la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taliye ku-xigeenka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, xildhibaan Ubax Tahliil Warsame iyo mas'uuliyiin kale ayaa la isku raacay in madaxweyne Xaaf uusan ka mid noqon tartanka madaxweynaha Galmudug ee doorashada sanadka 2019 sida ilwareedyo lagu kalsoonaan karo ay sheegeen. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa la sheegay inuu qaatay malaayiin lacag ah
oo qayb ka ahayd heshiiskii uu la galay dowladda federaalka ee Soomaaliya kaas oo lagu gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Lacagta la siiyay madaxweyne Xaaf oo lagu kala qaatay madaxtooyada Soomaaliya ayaa laga bixiyay habeenkii uu warqadda soo saaray madaxweyne Xaaf ee uu ku beegnayd 3 bishan. Warqaddaas waxaa ku qornaa in wixii hadda ka dambeeya doorashada Galmudug iyo shirkaba ay garwadeen ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Soomaaliya. wararku waxay sidoo kale sheegayaan in uu Xaaf uu hadda ka dhamaaday arrimaha Galmudug isla markaana uu saxay heshiis ah inuu ka qayb gali doono tartanka Galmudug wixii hadda ka dambeeyana ay maamusho dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale wararku waxay sheegayaan in Xaaf la siiyay lacag lagu sheegay inay ka badan tahay 3 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxaana la sheegay in loo ballan qaaday xil muhiim ah in shakhsiyaad uu wato la magacaabi doono. Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare ayaa hore meesha uga saaray madaxweynihii Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan kadib markii ay soo saareen cadaadis taas oo markii dambe sababtay inuu iscasilo kana talaasado doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal warkii warbaahinta isha wararka xilligan waa naga intaa.